halkan oo ah xarunta xanaanada Al-Furqaan ee magaalada Gaalkacyo ayaa lagu qabtay bandhig aqooneedkan oo ahaa mid loo qabto ardayda wax ka barata xanaanadan. Bandhig aqooneedkan oo si joogto ah lagu qabto ardayda wax ka barata xanaanadan Al-Furqaan ayay ardaydu ku soo bandhigaan aqoontooda diimeed oo ay barteen intay ku sugnaayeen xaruntan, iyadoona ay ka soo qayb galeen munaasabadda bandhig aqooneedkan ardayda, culimaaddin, waalidiin, maamul, معلمين يا مرترف لوعة سومي مناسبة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى حمزة فتح لام ساكن ال حاء فتح ميم ساكن حم الحم دال دمبدو الحمد لام كسر علي لام فتح الف ساكن لا مع تشديد اللام لله ها كسره لله را فتح را با كسر بي مع تشديد الباء ربي حمزة فتح لام ساكن ال عين فتح الف ساكن عا العا لام فتح لا العالى مين كسر يا ساكمي العالمي نو فرحنا العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية الفصل الخامس حمزة فتح لام ساكن على حمزة كسر لام ساكن حمزة ضم لام ساكن
با فعل همزة بل با كسر همزة بال با ضم همزة بل بل بال بل تا فعل همزة تل تا كسر همزة تل تا ضم همزة تل 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 تل. الفصل السادس حمزة فتحة واو ساكن أو با فتحة واو ساكن بو تا فتحة واو ساكن تو سا فتحة واو ساكن سو جيم فتحة واو ساكن شو حا فتحة واو ساكن حو. waxaan soo gaarnay qaybtii kiciska maxamed cabdisalaan waxaa laga rabaa inaan kicido xuruufta meesha ku qoran وجب ستنا فتح قال ضرب قعد سمع جعل لكم ينبت سجد صالح حمدا سجدة. xuseen cabdullaahi macalin xasan noo kicinaya سرع حمد ضرب لك بك. هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. rawdadan waxa weeye waa rawdo wax badan ku soo kordhisay deegaanka rawdadul furqaan alcaalamiya xarunta xanaanada runtii xanaanooyin badan baa laga yaabaa inay ka hormartay marka aan fiirino siday ardadu wax u kicinayaan siday quraanka uu baalka hikaayada ula qabsadeen iyo arday la leeyahay 2 biloodba kiciskii iyo akhriskii waa ma sha Allah waa arintii awal 6 bilood macallimiinta ku qaadan jiray waa rawdadu waxay ku soo koobtay 2 bilood 3 bilood aad iyo aad baa macallinku u mahadsan yahay quraankuna qiimaha uu leeyahay iyo quraanka in la isbaraa qiimaha uu leeyahay nabiga nooga warramay muxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam khayrukum waxa idin kugu khayr badan man ta'allama alqur'ana qofkii quraanka bartay oo haddana uu callamahu dadka baraya horta quraanku qiimahaas uu leeyahay waxa kale oo jira xadiis dheer oo aad u fara badan oo nabiga sallallahu alayhi wasallam fadaa'ilka quraanka uga warramay xadiiskaas wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam qofkii quraanka barta ay maqlis arday qofkii quraanka barta maalinta qiyaamo waxa la yiri waxa la soo kulminayaa malaa'ig la yiraahdo malaa'ikatu safaratil kiramil barara